haddaba yacquub wuxuu arkay in haruun laga helo masar markaasuu yacquub wiilashiisii ku yidhi war maxaa midkiinba midka kale u fiirinayaa oo wuxuu yidhi bal ogaada waxaan maqlay in haruun laga helo masar bal xaggaas u dhacdhaca oo halkaas waxa inooga soo iibiya inaynu noolaanno oo aynaan dhimanin markaasaa yuusuf 10kiisii walaal waxay u tageen masar inay haruun ka soo iibsadaan laakiinse benyaamiin oo ahaa yuusuf walaalkiis yacquub ma uu raacinin walaalihiis waayo wuxuu is yidhi waaba intaasoo balaayo ku dhacdaa markaasaa wiilashii israa'iil waxay u yimaadeen inay wax iibsadaan iyagoo la socda kuwii yimid waayo abaartu dalkii kancaanna way ka dhacday yuusufna wuxuu ahaa taliyihii dalka isaguna wuxuu ahaa kii wax ka iibin jiray dadka dalka oo dhan markaasay yuusuf walaalihiis u yimaadeen isagii oo intay u wada sujuudeen ayay wejiga dhulka wada saareen yuusufna walaalihiis wuu arkay wuuna gartay laakiin wuxuu isaga dhigay sidii nin qalaad oo intuu si qallafsan ula hadlay ayuu wuxuu ku yidhi iyagii war xaggee baad ka timaadeen oo iyana waxay yidhaahdeen waxaannu ka nimid dalka kancaan si aannu cunto u iibsanno yuusufna wuu gartay walaalihiis laakiinse iyagu ma ay garan isagii markaasaa yuusuf xusuustay riyooyinkii iyaga ku saabsanaa oo uu ku riyooday oo wuxuu ku yidhi iyagii basaasyaad tihiin oo waxaad u timaadeen inaad aragtaan dhulka abaarnimadiisa iyana waxay ku yidhaahdeen isagii maya sayidkayagiiyow laakiinse annagoo addoommadaada ah waxaannu u nimid inaannu cunto iibsanno kulligayo isku nin wiilashiis baannu nahay oo waxaannu nahay niman daacad ah oo annagoo addoommadaada ah basaasyo ma nihin oo isna wuxuu ku yidhi iyagii maya laakiinse waxaad u timaadeen inaad aragtaan dhulka abaarnimadiisa iyana waxay yidhaahdeen annagoo ah addoommadaada waxaannu nahay 12 walaalo ah oo waxaannu nahay nin jooga dalka kancaan wiilashiisii oo baleeg kii noogu yaraa wuxuu maanta la joogaa aabbahayo midna maba joogo markaasuu yuusuf iyagii ku yidhi taasi waa tii aan idinkula hadlay anigoo leh basaasyaad tihiin haddaba tan baa laydinku tijaabin doonaa nolosha fircoon waan ku dhaartay inaydaan halkan ka tegi doonin in walaalkiinnii yaraa halkan yimaaddo mooyaane mid idinka mid ah dira oo ha keeno walaalkiin idinkuna waad xidhnaan doontaan in la tijaabiyo hadalkiinna bal inay runi idinku jirto iyo in kale haddii kalese hubaal nolosha fircoon baan ku dhaartay inaad basaasya tihiin markaasuu kulligood muddo 3 maalmood ah wada xabbisay kolkaasaa maalintii 3aad yuusuf iyagii ku yidhi tan yeela oo waad noolaan doontaan waayo anigu ilaah baan ka cabsadaa haddaad niman daacad ah tihiin walaalihiinna midkood ha ku xidhnaado guriga xabsigiinna laakiinse idinku taga oo haruun u geeya reerihiinna abaaraysan walaalkiinna idinku wada yar ii keena sidaasuu hadalkiinnu ku rumoobi doonaa mana aad dhiman doontaan iyana sidii bay yeeleen markaasay waxay isku yidhaahdeen runtii walaalkeen eed baan ka galnay maxaa yeelay waxaynu aragnay naftiisii dhibaatada ku jirtay markuu ina baryey mana aynu maqlin sidaas daraaddeed ayay dhibaatadani inoogu dhacday markaasaa ruubeen u jawaabay iyagii oo wuxuu ku yidhi miyaanan idinla hadlin oo idinku odhan wiilka ha ku dembaabina oo sow ima aydan maqli waayin haddaba bal eega dhiiggiisii baa laydin weyddiistaye oo iyana ma ay ogayn in yuusuf gartay iyaga waayo turjumaan baa kala dhex joogay markaasuu ka sii jeestay iyagii wuuna ooyey oo haddana intuu ku soo noqday ayuu la hadlay oo wuxuu kala dhex baxay simecoon wuuna xidhay isagii iyagoo arkaya markaasaa yuusuf wuxuu amray in joonyadahoodii hadhuudh looga buuxiyo iyo in nin walba lacagtiisii loogu celiyo joonyadiisii iyo in sahay jidka loo siiyo oo sidii baana loo yeelay markaasay hadhuudhkoodii dameeradoodii ku rarteen wayna ka tageen halkaas meeshay ku hoydeen markii uu midkood joonyadiisii ugu furay inuu dameerkiisiiyo cunto siiyo ayuu arkay lacagtiisii oo ku jirta joonyadiisii afkeeda markaasuu walaalihiis ku yidhi lacagtaydii waa lay soo celiyey oo waxay ku jirtaa joonyadayda markaasay qalbiga ka naxeen
oo ay isku jeesteen iyagoo gariiraya oo waxay isku yidhaahdeen waa maxay waxa kan ilaah inagu sameeyey markaasay aabbood yacquub ugu yimaadeen dalkii kancaan oo waxay isagii u sheegeen wixii ku dhacay oo dhan iyagoo leh ninka sayidka u ah dalka ayaa si qallafsan noola hadlay oo wuxuu noo qaatay inaannu dalka basaasayno oo waxaannu isagii ku nidhi annagu waxaannu nahay niman daacad ah oo basaasyo ma aannu nihin waxaannu nahay 12 walaalo ah oo ah wiilashii aabbahayo mid ma joogo kii noogu yaraana maanta dalkii kancaan ayuu aabbahayo la joogaa markaasaa ninkii sayidka u ahaa dalka wuxuu nagu yidhi inaad niman daacada tihiin tanaan idinku garan doonaaye walaalihiin mid igaga taga oo hadhuudh u qaada reerihiinna abaaraysan oo iskaga taga oo ii keena walaalkiinnii idinku wada yaraa markaasaan garan doonaa inaydaan basaasyo ahayn laakiinse inaad tihiin niman daacada markaasaan walaalkiin idin siin doonaa dalkana waad ka baayac mushtari doontaan oo waxay noqotay in markay joonyadahoodii hadhuudhkii ka shubeen nin walba xidhmadiisii lacagta ahayd ay ugu jirta joonyadiisii oo markii iyaga iyo aabbood ay arkeen xidhmooyinkoodii lacagta ahaa ayay baqeen markaasaa aabbood yacquub wuxuu iyagii ku yidhi gablan baad iga dhigteen bal eeg yuusuf ma joogo oo sibcoon ma joogo oo haddana waxaad kaxayn doontaan benyamiin waxyaalahan oo dhammu waa iga gees markaasaa rubeen aabbihiis la hadlay oo wuxuu ku yidhi haddii aan isaga kuu keeni waayo dil labadayada wiil aniga ii dhiib isaga oo anna waan kuu soo celin doonaa markaasuu yidhi wiilkaygu idinla dhaadhaci maayo waayo walaalkiis waa dhintay oo keligiis baa hadhay haddii jidka aad sii maraysaan balaayo kaga dhacdo isaga dee markaas cirradayda caloolxumaad qabriga la gelin doontaan